waxaan galaynaa nabigii saddexaad iyo rasuulkii koowaad qisadiisa waana nuux calayhi salaam. nabi nuux qisadiisa waa mid ka mid ah qisaska ambiyada ee ku xusan qur'aanka kariimka iyo axaadiista nebiga. nabi nuux waxa uu ka mid ahaa rasushii ugu horeeyey ee uu alla soo diray una soo diray dadka si uu ugu waaniyo uguna digo in ay alla caabudaan oo iska daayaan sanamyada ay caabudayaan iyo caadooyinka qaldan. alle waxa uu ku magacaabay nabi nuux adoonkii ilaahay ee shukrinta badnaa. marka nabi nuux waxa uu rasuulkii koowaad uu ku noqday rasuul iyo nabi waa ay kala duwan yihiin oo waxa isaga ka horeeyay nabi aadam, nabi shiis iyo nabi idris oo ayagu waxa ay ahaayeen nabiyo alla ayaana u waxyoon jiray. nuuxna nabi iyo rasuul ayuu isku ahaa waxaana la soo diray 10 qarni kadib nabi aadam. 10 qarni ka hor soo bixitaankii nabi nuux dadku waa ay wanaagsanaayeen, markaas kadib waa ay iskhilaafeen dadka waxaana loo soo diray nebiyo dadka u diga uguna diga alle ciqaabtiisa waxaana la soo diray nabi nuux. nabi nuux wuxuu la noolaa qoom la oran jiray qoomkii nuux. qoomkiisana waxa ay ahaayeen kuwa caabudi jiray sanamyada waxayna ahaayeen dad ku dhagan shirkiga iyo cibaadada sanamyada. alle ayaa soo diray nabi nuux si uu ugu yeero cibaadada alle oo kaliya kana digo cibaadada sanamyada. nuux wuxuu u sheegay qoomkiisa in alle uu yahay kan kaliya ee la caabudo, balse waa ay diideen waxayna noqdeen kuwa madax adag. qoomka nuux waxa ay ku caasiyeen fariintii uu u keenay waxayna bilaabeen inay ku jeesjeesaan una maleeyaan in uu yahay nabi nuux mid waalan. nabi nuux waxa uu noolaa 950 sano. muddadaasi uu noolaa waxa uu ku dhex jiray qoomkiisa wuxuuna ugu yeerayay diinta alle. hadalkiisa waa ay diideen wayna ku jeesjeeseen. waa uu u samray wuuna u dulqaatay. isaga oo aan ka quusanaynin ayuu isku dayay dhammaan siyaabo walba oo uu ku waani karo uuna ugu wacdin karo inuu ugu wacdiyo, isagoo habeen iyo maalinna ku dadaalayay siduu fariinta alle ayaga u gaarsiin lahaa. laakiin dadkii qoomkiisa ahaa badankoodu waa ay diideen in ay qaataan fariintiisa waxa ayna sii wateen caasinimadooda. markii u dambaysayna alle waxa uu u waxyooday nabi nuux si uu u sameeyo markab weyn oo la saaro dadka alle aaminay oona rumeeyey iyo xayawaano. nabi nuux waxa uu bilaabay samaynta markabka isaga oo raacaya tilmaamaha alle. markii qoomkiisana ay arkeen samayntii markabka waxa ay bilaabeen in ay ku jeesjeesaan iyaga oo leh maxaad markab u dhisaysaa halkan biyo ma yaalaane. markii uu markabka dhameeyay alla ayaa faray nabi nuux in uu ku qaato markabka dadka alla rumeeyey iyo xayawaanada. markii dambana alle waxa uu soo daayay daad aad u weyn oo qoomkii nuux dhulka ku halaagsaday. roobab xoog leh ayaa da'ay oo aan kala joogsi lahayn waxa ayna socdeen muddo dheer. biyihii ayaa ka soo burqaday dhulka hoostiisa iyo cirka waxaana ka dhashay daad weyn oo qoomkii gaalada ahaa ee nabi nuux ku jeesjeesay sidaasna ku halaagay kaliya nabi nuux calayhi salaam iyo ehelkiisii iimaanka lahaa iyo xayawaanadii ayuu alle ka badbaadiyey daadkii. nabi nuux iyo dadkii la socday ayaa muddo ku noolaa markabka ilaa biyihii oo dhan ay hoos u dhaceen. kadibna markabkii waxa uu ku degay buurta juudi. nabi nuux iyo dadkii la socday ayaa markaa haddana dib u bilaabay noloshii caadiga.